kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantiiba saaxiibayaal ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaynu ku baran doonnaa waxyaabaha sharafta qofka kor u qaada. weligaa cidna waxba ha ka baryin. haddii aad qof wax weydiinayso dhib ma laha inaad weydiiso, laakiin weligaa ha baryin, waayo bani aadam ahaan waxaynu ka soo qaadnaa qofkayna barya inuu inaga daciifsan yahay. waxaana adkaanaysa inaynu qofkaa xushmayno ama aynu ixtiraam iyo meeqaam sare siino. sidaa darteed weligaa qofna waxba ha ka baryin. weligaa ha noqon qof baahi badan. haddii aad u baahan tahay in wax laga caawiyo, ha muujin inaad waxaa aad ugu baahan tahay. baahidaaduna yay badnaan sideedaba, waayo dadkeennu waxay ku maamaahaan baryo badan iyo baahi badanba waa la ysku nacaa. inaad dadka ka tanbadiso codsiyo badan, telefoonno badan ama su'aalo badan waxay sababaysaa in qiimaha aad agtooda ku leedahay hoos u dhaco, agtoodana ka heli maysid xushmaddii aad ka rabtay. ku istaaga cagahaaga oo noqo qof awood leh. dhammaanteen waxaynu nahay bani aadam, waxaynanu la kulannaa xaalado adag, balse waa inaad noqotaa qof adkaysi leh oo xaaladda adag ka dabaalan kara, noloshiisana sii wadan kara. dadkuna aad ayay kuu xushmayn doonaan. xushmee naftaada. waxa aad u adag inaad dadka xushmad ka hesho haddii aanad adigu xushmayn naftaada. si aad naftaada u xushmayso, ilaali ballamaha aad naftaada la gasho. ilaali cibaadada Ilaahay, badi xuska Ilaahay iyo salliga nebigeenna Maxamed sallallahu calayhi wasallam. xushmee dadka kale sidaad adiguba u jeceshahay inay ku xushmeeyaan. qadarin iyo soo dhoweynna u muuji, si ay iyaguna kuu xushmeeyaan kuuna qadariyaan. waa inaad noqotaa qof karti leh, isla markaana ka soo bixi kara howlaha lagu halleeyo. noqo qof u fiican ballamaha oo ilaaliya ballanta uu dadka la galo. ballantu waxay noqon kartaa inaad qofka u ballanqaaday waxaad siinayso, ama inaad ku ballanteen inaad meel isugu timaadaan. haddaba dhammaan ballamaha aad dadka la gelayso, nooc kastoo ay yihiinba, waa inaad ilaalisaa. noqo qof aan hadal badnayn, balse markuu hadlo si xikmadi ku jirto u hadla. iska ilaali inaad ku dhex dhacdo sheeko ay asxaabtaadu wateen, hana ku degdegin ilaa aad fahanto. iska ilaali kaftanka badan iyo hadallada ay dhibsanayaan asxaabtaada iyo dadka ay wada shaqayntu idinka dhaxayso. waa inaad noqotaa qof dadka caawiya, isla markaana gacan qabta. caawintu waxay ka mid tahay waxyaabaha dadka lagu kasbado ee ay kugu xushmayn doonaan. waa inaad noqotaa qof cafis badan oo u dulqaata caqabadaha ka soo gaadhaya dadka ku hareeraysan. aad baad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. haddii aanad hore sabskrayb u saarin channelkeenna Maamuusa Media, sabskrayb hadda saar, fideogana like saar.